doorashada aan heshiis lagu ahayn suurtagal ma noqonayso hal sanduuq oo laga qaado baa ku filan doorashada oo dhan fashilin kara hal sanduuq oo gacanta lagu dhigo kaliya ba fashilin kara doorashada gebigeeda baa qabaan iminka waxay la joogaa Mujaahid Axmed Cadib ugu horeyn sidee u aragtaa shirkii maalmadii ku soo gabagabay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si fiican baan u arkaa qodobadii iyo wixii ka soo baxayna waan soo dhaweynay aad baan soo dhaweynay runtii ahaantii qodobo masiiriya bay ahaayeen hadii wax lagu qaadanayo oo ninkan madaxweynaha dalka hay uu haduu wax qaadanayo waa dadku way garnaqsadeen dadkana waxay tuseen waxa halka khaladku ka jira bay tuseen marka waxaan leenahay ilaahay xaq hafasiyo musabixi xaq hafasiyo waxa ku soo celiyo miiska wada hadalada taas intaas baan u arkaa qodobadana waa soo dhaweynaya dhamaantood qodobada kuwada ugu cuslaa waxa kamid ahaa in deegaanada ay beeshu degto hadii la gaaro 13 November aan doorasho lagu heshiis ahayn dalka laga qabto in deegaanada beesha shirki qabsanaysa ay degto aan ka dhicin wax doorasho arintaas sidee bay suurtagal u noqon kartaa maadaama beesha ay beela kala deegaanada ay qudooda la deegaan nin ragna hadalkaas nin ragna uu garanaya nacasna loo sheegi maayo waska cad arintaas waxaan u arkaa doorashada aan heshiis lagu ahayn suurtagal ma noqonayso hal sanduuq oo laga qaado baa ku filan doorashada oo dhan fashilin kara hal sanduuq oo gacanta lagu dhigo kaliya ba fashilin kara doorashada gebigeeda baa qabaan taas markaas aan u arkaa inay suurtagal ahayn iyadan waxaan heshiis lagu aanay dhacaan musabixi mar kale wuxuu ku celiyay in doorashadii madaxtooyada ay ka soo hormari doonto doorashada ururada go'aanka madaxweynuhu wali ah in doorashada ururadu ay horeynayaan maxay ka dhigan tahay taas waxa ka dhigan tahay macaangeednimo iyo madaxadeegnimo baan u arkaa anigu taarunta runtii waxaan aaminsanahay waxa dadkanu ay dadka wax go'aamiya isagoo xubin go'aamin kabar kaligi لكن waxaan sidoo maaska wax ku aaminayeen insha Allah ta'ala